mudane ka tirsan baarlamaanka dalkan Mareykanka Congress-ka lana yiraahdo magaciisa Randy Fine ayaa markii ugu horeysay hadallo naceeb ah oo muslim naceeb loo tiiriyay uu ka soo yeeray. mudanahan ayaa waxa uu ku soo qoray bartiisa X-ka in uu yiri muslimiinta waxa aan ka doorbidi lahaa eeyaha. waxa uu yiri haddaan si kale u dhigo eeyaha ayaan ahmiyad gaar ah iyo fadli siin lahaa marka loo barbar dhigo muslimiinta. hadalkiisani uu ku soo qoray baraha bulshada ayaa guud ahaanba isqabsatay waxa ayna noqotay warbaahinta Mareykanka arrin ay si weyn u hadal hayso ka gadaal markii ay si weyn u naqdiyeen ayaguna xubnaha mudanayaasha baarlamaanka ee ku jira labada aqal ee Congress-ka ee dalkan Mareykanka iyo sidoo kale siyaasiyiin hore iyo qaar kamida dadka u ololeeya arrimaha muslimiinta diimaha iyo dadka laga tirada badan yahay ee wadankan Mareykanka ku dhaqan. hadalkiisani ayaa waxa ninkan oo si weyn loogu yaqaano baarlamaanka wadankan Mareykanka isla markaasina laga soo doorto gobolka Florida kana tirsan xubnaha Republicaanka ee gobolkaasi ka soo gala ee GOP-ga waxa uu shaaca ka qaaday kadib markii uu u jawaabayay haweeney muslimad ah asal ahaan ka soo jeeda Falastiin isla markaasina degan magaalada New York ee dalkan Mareykanka. hadalkiisan waxa uu uga comment gareeyay amaba uu faalo dib ugu celiyay gabadhaasi war ay soo dhigtay X-ka iyadoo markaasi ayaduna sheegtay in magaalada New York ay tahay magaalo islaamka uu yimid isla markaasina eeyuhu ay noqdaan kuwa guryaha ku eg. hadalkeeda si kasto ay tirahdayba iyadu inkastoo markii dambeeta ay rogrogtay haddana waxa hadalkeeda laga dhadhansan karay haweeneydaasi oo si weyn ugu dhow mayorka magaalada New York Soqraan Mamdani dadkii u ololeynayna kamida in ay ula jeedo in mayorkii ugu horeeyay ee muslim ah sanadkan uu markii ugu horeysay hogaamiye ka yahay magaaladaasi New York. balse dhinaca kale arrintan waxa si weyn u qaaday Randy Fine iyo mudanayaasha kale ee iyagu ka tirsan midigta fog xisbiga Republicaanka kuwaasi oo sheegay in ay muhiim tahay in si weyn looga hortago in eeyaha New York iyo guud ahaan dalka Mareykanka laga badbaadiyay ayay yiraahdeen ku dhaqanka shariicada islaamka oo loo cuskado sharciga islaamka. waxaana ay sheegeen in ay keenayaan aqalka dalkan Mareykanka looga armiyo Congress-ka sharci siinaya xorriyad iyo markaas in la yeelan karo eeyaha dadkuna ay heesan karaan oo aysan ahayn wax dhibaato ah. ku soo dhawow dugsiga Daarul Amsaal Qur'aan Online haddii aad jecleed carruurtaada inay bartaan Qur'aan Kariimka ah si sax ah faham leh oo joogto ah waxa diyaar ku ah oo ka caawinaya dugsiga Daarul Amsaal Qur'aan Online waa goob ku haboon barashada Qur'aan Kariimka ee shariicada islaamka hab casri ah barashada fahamka iyo xifdinta Qur'aan Kariimka dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada carruur dhalinyaro iyo dadku waaweyn laba iyo dhadigba waxaan dhignaa duruus kala duwan oo muhiim ah sida hingaada Qur'aanka ducooyinka salaada af-Soomaaliga xadiiska fiqiga iyo asaasiyaadka culumta shariicada. dugsiga Daarul Amsaal Online waxa diyaar ku ah macallimiin wanaagsan oo khibrad sare iyo aragnimo dheer u leh barista Qur'aanka iyo shariicada islaamka. sidoo kale dugsiga waxa kuugu diyaar ah haddii uu ardayga ka gudbo heerka koowaad ee akhrinta Qur'aanka iyo qorista wuxuu helayaa shahaado casri ah oo muujinaysa inuu ardaygaas bartay akhrinta iyo qorista. haddaba hore u gaar isna diiwaangeli wixii faahfaahintaas dheeri ah nagala soo xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda. hase yeeshee hadalka xildhibaankan iyo kuwa kaleeta ee ayaguna ku daba safan oo ilaa iyo haatan qaybo kamida iska soo daba dhacayaan ayaa waxa ay noqotay mid si weyn warbaahintu ay u hadal hayso islaam naceeb iyo muslim naceeb ama islamophobia waxa loo yaqaanana lagu nisbeeyay. waxaa jirta in qaar kamida xubnaha Congress-ka ee Hakeem Jafari uu kamid yahay ee xubnaha dimuqraadiga ah ay ayaguna iyaga oo kooxa ah ay dalbadeen in mudanahan baarlamaanka ka tirsan Congress-ka dalkan Mareykanka xilka xayuubin lagu sameeyo amaba uu ka dago xilka uu haatan hayo ee loo doortay ee ah mudanaha baarlamaanka ee Congress-ka. arrintu waxa ay socotaba cirka ay isku shareertay maantana sida aan sheegay xildhibaankaasi iyo xildhibaanada kale ee ka tirsan xisbiga Republicaankuba waxa ay riixayaan in la helo sharci sida ay yiraahdeen difaaca eeyaha maadaama ay yiraahdeen shariicada islaamka eeyaha ay ka soo horjeedo waa sida ayaga hadalka ay u dhigayaan. haddaba arrintan maxay saameyn u yeelatay amaba ay xusuusin far badani ay dadku ugu sameynayaan dadka ama warbaahintu ay u hadal haysaa.
ujeedada ugu badan waxa ay tahay in dalkan Mareykanka uu wali leeyahay boogaha la xiriira naceebka hadii ay noqoto dadka African Americanka ee wadankan Mareykanka la keenay oo iyagu soo maray xilli adag iyo naceeb iyo dhibaatooyin fara badan oo ay wali tirsanayaan bulsho ahaanna hoosta laga dareemayo iyo sidoo kale dadyowga kale ee dalkan Mareykanka loogu yimid ee la yiraahdo Indian Americans ayaguna dhinaca kale sheegto in si gaar ah loo takooray lagu sameeyay isirsafeen la laayay dhibaatooyin fara badan loo geystay hadaba waayadii ugu dambeysay islaamofobiyada waxa loo yaqaano hadii aad maqasho iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee naceebka ah ayaa waxa ay ahaayeen kuwa si weyn u soo ifbaxay ama u muuqanayay waxaana jirta in xataa dadyowga soo galootiga ah waayadii ugu dambeysay intii uu bilaabay madaxweyne Donald Trump inuu si gaar ah u bartilmaameedsado ummadaha soo galootiga ah in ay saameyn naceeb loo fasirta iyaduna ay yeelatay hadaba si taasi looga hortago dad fara badan oo Mareykanka ah oo isugu jira xubnaha labada aqal ee baarlamaanka wadankan Mareykanka iyo dadyowga kale ee caadiga ahba ayaa waxa ay had iyo goorba u istaagaan xuquuqda dadka laga tirada badan yahay kuwa sidoo kale naafooyinka ah kuwa midabada lagu takoori karo kuwa diinta lagu takoori karo iyo cid walbaba si loo helo jawi deganaansho oo dadku ay ku wada noolaan karaan iyo sinaan iyo cadaalad waxaana jirta arrimaha noocan oo kale ah dadku in ay si weyn u naqdiyaan marka ay soo baxaan hadaba mudanahan baarlamaanka iyo mudanayaasha kale ee iyagu la ologa ah ama ku aragtida ah ayaa waxa ka muuqanaya naceeb xoogan iyada oo taasina ay si jirin ilaa iyo haatan xataa wax raali gelina oo uu ka bixiyo marka laga reebo inuu leeyahay sharciyo cusub oo eeyaha ka difaacaya muslimiinta iyo shariicada islaamka ayaan soo maaragtay geenayna xubnaha baarlamaanka hortooda si loo meelmariyo sharcigaas hadaba waa sharci sida hadda ay u dhigayaan kiisi ugu horeeyay oo aanan weligiis hore loo maqlin haatan ay doonayaan xubnaha baarlamaanka ee Republicaanku in ay meel mariyaan inkastoo aysan fududeyn in xubno gaara intay meel isugu yimaadaan sharci soo qortaan hadana si fudud loo meel marin karo sharciyadu waxay u baahan yihiin in xubnaha baarlamaanka 3 meelood 2 meel in ka badan ay isku raacaan isla markaasina uu sidaas ku dhaqan galo oo uu sharci ku noqdo wadayaal arrimaha Mareykanka iyo guud ahaanba caalamka iyo wararka ku saleysan xataa waxa ka soo kordhi kara duulaanka la hadal hayo toddobaadkan labada cisho nagu soo aadan ee arrimaha Iran si gaar ah Somali Coverage TV ay isha ugu haysa hadii Allah wada la ogolaadana waan idin la socodsiin doonaa wararkeena kuwooda ugu xiisaha badan xaqiiqadana ku saleysan si taasi hadaba aad u heshid hadaba subscribe dheh oo gambaleelkana furo si wararka Somali Coverage TV ay toos kuugu soo dhacaan oo aad u heshid warbixinadeena joogtada ah oo ilaa iyo guud ahaanba Soomaaliya iyo caalamkaba aan ku eegi doono inta ka horeysa sidaas iyo nabad geliyo